بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadlaynaa insha Allah isbedelada ku dhacay idaacadaha marka ay soo baxeen social media-ha oo dad fara badan ay u arkaan in social media markuu soo baxay ay aad u saameysay idaacadihii haddii aan leeyahay TV-da ama idaacadihii. Marka waxaan ka warsan doonaa insha Allah haddii aan idmo oo khad taleefon ku jiro Abdulkadir Mursal oo mar ahaa agaasimihii idaacadda raadiyo Muqdisho ahaa iyo waryaashii kasoo shaqeeyay raadiyo Muqdisho ayuu kamid ahaa. waxaa u maqaal ah inuu idaacadda raadiyo Muqdisho ku biiray 1974 sayaan kulli u deeriya dad badan kulli way yaqaanaan Abdulkadir Mursal kusoo dhawo idaacadda Voice of Oslo habeenkan caawa ah gacmo furan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كان دقيقة سنة وأنا سلام على دمانتون. أبي وأنا أسمع عليه. wanaagsan wacan bal waxaad noo dumartaa bal markii social media ay soo baxeen sida Facebooka, Twitterka, YouTubeka iyo meelaha kale ee lagu kala warqaato sida video call iyo arrimahaas markay soo baxeen ayaa dadka inta badan waxay ay sheegaan in idaacadihii halkaas ka baxay dadka inta badan ay social media ay la socdaan oo waliba dadku ay sheegaan inta badan in social media uu wax badan ka horeeyo idaacadaha bal taas nooga faalo bal iyo sidoo kale sawir sid bal marka horta social media amaba warbaahinta bulshada طبعا waxay soo baxeen muddo hadda laga joogayo taqriiban bilowgooda waxaan ka hadno 2000 ay xoogooda badnaa ayaa ay bilaabeen walow aan isticmaali jirin laataasi ay jireen khaladka ama waxyaabaha loo isticmaalo social media halkaan ka soo qaadno ama aan ka hadalno idaacadaha waan badanaa aan ka shaqayn jiray inta badan waxaan u malaynayaa markii ay soo baxeen social media hadda idaacadaha laftigooda ayaa waxay ahaayeen laba qaybood oo aan rabo marka hore inaan iftiimiyo labada qaybood kadibna aan soo dhexgeliyo faadkiiyo saamaynta uu social media oo ku yeeshay warbaahinta guud ahaan caalamka oo dhan gaar ahaanna warbaahinta Soomaaliyeed. waxaan kuu sheegayaa midnimo idaacadaha markii ugu horreysay waxay ka hadli jireen bulshadaha gaagaaban ama dadka caalamiyan ahaan loo yaqaano short wave-ka bulshadaha gaagaaban ayay idaacaduhu ka hadli jireen oo badanaa meelaha fog laga maqli jiray meelaha dhadhow iyo dexana laga maqli jiray meel aanu gaari karin ma jirin short wave hadday tahay iyo bad waxaan ka wadaa bad iyo beriba waxaad dareemi kartaa maraakiibta badaha waaweyn badaha iyo kuwa kale xataa dowladaha waxa ay dhegeysan jireen idaacadaha khaladka ku baxa short wave-ka ama mawjadaha dhexe gaagaaban hadhee way ahayd wax wada gaara dhammaan adduunka oo dhan innagu marka waxaanu ka mid ahay idaacadahaasi isticmaali jiray short wave-ka oo ama mawjadaha gaagaaban hadhee waxaana ka hadli jirnay dalka gudihiisa oo dhan iyo dalka dibaddiisa labadaba muddo kadibna waxa aan ka mid noqonnay ama aan helnay dadka ku shaqeeya ama idaacadaha ku shaqeeya mawjadaha dhexe marka innagu haysana mawjadii short wave-ka ayaan isla markaasina helnay mawjada dhexe mawjadaasi dhexena
waxay nagu soo biirtay oo aan helnay farsamadeeda oo la dhisay transmiteradeeda ay dhammaystirmeen sanadkii 1980 sidii labada ka dambeeyana mawjadaasi dhexe waa isticmaali jirnay mawjadaasi dhexe waxay noo suurta gelisay in dalka gudihiisa si wanaagsan looga dhegeysto si aad u wanaagsan looga dhegeysto oo faseexa marka mawjadaas faseexa ee mawjada dhexe transmiteradeedu waxay ahayd transmitero qaali ah oo dowladda Soomaaliyeed ay diin ahaan ugu deeqeen dowladihii markaas saaxiibka la ahaa sidii midooda Sovieti iyo Jarmalka saas oo kale waxaase laga soo galay farsamahaan laga kala beriyahay dowladda Yugoslavia ee iyadana burburtay mawjadaha oo shirweyska ay mawjada dhexe innaga oo ku naadoonayna oo adduunkoo dhan laga dhegeysto dalka gudihiisa dhan laga dhegeysto ninka geeljilaha ah uuna dhegeysto ninka badmaaxa ah ee badmareenkaana oo badda laga dhegeysto magaalooyinka iyo tuulooyinka laga dhegeysto waxaan ahay dowladaha Afrika kuwa loogu horeeya ee mawjadahaasi ku hadla ama ka hadlaya warkooda laaliya mawjadahaasi waxay soo gaareen intaan ugu gudboonaynta ay soo gaareen ama xilligay soo gaareen anagii Muqdisho waxa uu horiyey barnaamijyo markaa badan oo kala gedisan oo ay suurta gelisay in idaacadahaasi mawjadaha dhexe iyo mawjadaha gaagaaban lagu waliyo sida barnaamijkii la oran jiray dalmar oo loogu talagalay jaariiraha Soomaaliyeed ee dibadda ku nool barnaamijkaasina barnaamijyadii anigu aan fakaray oo aan sii dayin jiray ka mid ahay iyo barnaamijka dadkii ciidamada kala gashiya oo isaga laftigiisa aniga aan horiyo aan u sameeyey anigu markaasna idaacadda madaxka ah labada barnaamij gaar ahaan barnaamijka dalmar ee loogu talagalay jaariiraha Soomaaliyeed ee dibadda ku nool waxa ahaa inay dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku dhaqan iyo dadka gudaha ku nool ku kala warqaataan oo dadku ay kala war helaan mawjadaas markii la sameeyey dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku dhaqan waxay fursad u heleen in ay dalkii la socdaan iyo dadkii ay la socdaan muddo kadib waxaa idaacadda raadiyo Muqdisho lagu kordhiyey idaacad FM ah oo loogu talagalay Muqdisho iyo agaarkeeda in laga dhegeysto isla markaasna farsamo ahaan loogu talagalay in warwaliska oo ku yaala kilomitir 17 ay u tuurto barnaamijyada iyo khadka raadiyo Muqdisho ku shaqeeyo ama uu ku shaqeeyo walaalisada dhaadheer ee kilomitir 17 inay isticmaasho idaacadaasi FM-ka dadka Muqdisho aad ayay u jeclaysteen maxaa yeelay idaacadda FM-ka waa idaacad fasiixa oo dadku ay si wanaagsan u dhegeysan karaan oo aan lahayn tashwiish iyo waxyaabahaas aan lahayn idaacadaasi oo FM-ka waxay keentay in gobollada Soomaaliya walow mawjada dhexe ay iyada lafteeda u dhowdahay oo ahaan hafsi ay ahayd asaabta FM-ka ma gaari in FM-ka waxaa loogu talagalay magaalada Muqdisho iyo agaarkeeda laga dhegeysto iyo saacadaha kale in loo isticmaalo idayada iyo warwaliska 1991 markii burburka uu ku dhacay dalka Soomaaliya dabcan idaacaddii FM-ka ahayd ee shaqaynaysay way go'day transmitteradii way dameen qalabkii
Soomaaliya maxaa yeelay dhammaan qalab ahaa oo muhiimka ahaa matooradii dadka dhalin jiray oo maxay ahayd warwaalashadii dhaadheeraa iyo addiinooyinkii injiinadii waaweynaa kala gedisnaa wixii matoorada qaboojin jira oo dhan ayaa ka sheekeyn maayo dhibaatooyin baa la gaarsiiyey intaa markay dhacday kadib waxaa bilaabay marka wax aan kala simannahay dadka kale adduunka maxaa yeelay idaacadihii short wave-ka ahaa weliba annaga ay naga dameen wajii dhexeba waxaa dowr ciyaaray idaacado kale oo dib ka samaysma oo FM-ya u badan idaacadaha FM-yadana badanaa waxay ku ogyihiin meelaha laga furay magaalooyinkay ku ogyihiin haddii tuulataa tuulay ku eg tahay baadihii laga dhegaysan maayo badihii fogfogaa iyo maraakiibtii dadka Soomaaliya saalahay laga dhegaysan maayo adduunyo kale laga dhegaysan maayo haddana waxay noqotay in qalabkan social media soo baxay warbaahinta in la xiriiriyo oo maaragtay khalad oo online ah idaacadihii ay ku xirmaan oo ay wada isticmaalaan oo ay dadkii markaas ay bilaabaan inay internetka ka dhegaystaan mushkilashaasi waxa weeye midnimo mushkiladda waxay tahay horumar baa laga gaaray oo online baa la sameeyey FM-yadii maaragtay guryihi ka shaqaynayaan laakiin taasi cillad weyn bay yeelatay oo ah ninkii miyiga ku nool oo aan internetka haysanin internet ma haysan meel idaacad FM ahna FM-yadii waxay ku yaalaan badanaa magaalooyinka waaweyn waxay noqotay marka in dadkii geeljirihii iyakii baadiyaha xoola raaci oo dhan ay waayaan wax ay dhegaystaan oo ay idaacadihii iyo wararkii iyo barnaamijyadii iyo noloshii iyo nabadii iyo maaweynadii iyo sugaantii yani waxba ma haystaan waxoo dhan waxay noqotay okay social media waa inaa internet haysataa waa inaa computer haysataa ama mobile haddaad mobile xataa phone aad haysatid labadaadaba ka dhaweyn hanteenooyin internet aanan kuu saamaxayn yani way adkaanaysaa si aad u hesho way noqotay marka idaacadiin inay isticmaalaan telefonka lambarkaa wac telefonkaas naga dhegeysta aniga waxay noqotay sophisticated xogaa way sii noqotay mucakar raadiana wuxuu ku wanaagsan yahay qofka inuu raadi haysto guriga u yaalo ama marka raadiga gacanta uu ku haysto oo saacad walba uu shiran karo oo sidoo hore uu shiran karo intii waa la waayay marka shidadaa bilaabatay oo xagga dhinaca farsamada ayaan ka hadlay oo intaas ah oo markii halkaa lasoo gaarayna dadkeenii Soomaalida ahaa ama beerooy ha noqdo ama raacato ha noqdo ama kalluumaysto ha noqdo yani waa la waayey idaacadii shuruud raiiska waxaa ku haray oo hadda maaragtay aan filayo in laga dhegeysto idaacadaha Voice of America iyo BBC-da way sameeyaan labadaba laakiin waa saacado kooban oo hal saac waxaasoo kale soo galaan images ayaa lagu magacaabaa idaacadaha short wave-ka wixii fariin oo degdega haddaad rabto inaad gaarsiisid fariin degdega haddaad rabto inaad gaarsiisid dadka Soomaalida ah meel kasta adduunka ku nool yihiin ma gaarsiin karaysid waxay noqonaysaa in hal meel laga helo fariinta inta kalan telefoon cidii haysata oo qof kastaba telefoon maanta ninka ingiliisida uu iska haystaa leesho laakiin idaacado kaafiya oo wada dhamaystiran oo wada gaari karaan meelahaas oo dhan midna ma laha intaas waa qaybtii koowaad oo madaxushii maanta idaacadihii waxaa la wareegay social medias ayaa la wareegay idaacadaha FM-ta oo magaalooyinka ka furan dadkuna ma wada haystaan internet dadkuna ma wada haystaan FM ma heli karaan awoodba ma laha inay markaasi dadka ay dhegeystaan intaas haddaan maanta ku koobno oo aan marka dambana aan ka hadalno muxuu soo kordhiyey ama ay soo kordhiyeen isticmaalka social mediaha idaacadihii iyo telefishinadii kale iyo kuwan maxay ku kala duwan yihiin fursaduhu maxay yihiin yaa ka shaqeeya dadka isticmaalaa maxay kala yihiin
wadada caadiga oo aanan dhaqan iyo asluub warbaahineed aan garanayn ama aan ilaalinayn shuruucda adduunka ama shuruucda gaarka ay qofka see loo isticmaalaa maxaa ka dhashay maxaa ka dhalan kara sida noocyada ay kala yihiin waxaasoo dhamma insha allahu tacaala qaybta kale labaad haddii aan laidmo insha allah haddii aan jecelahay inaan kusoo insha allah haddii aan laidmo barnaamijkan intaana soo koobin laba su-aal baan inaan ku weydiiyo su-aasha koowaad waxaa weeye raadiyo muqdisho xilligii la furay waan naqaanaayo xilli horaa la furay wariyaashii ka shaqeynaya dhammaantood qof walba barnaamij buu haystay oo intaasi macnaa maxay f m ta ama short wave-ka barnaamijyadu way wada gaari jireen idaacaddan waxaa laga maqan jiray wariyaal kala duwan oo codad kala duwan ah heerkaasi ma waxay ku gaareen qaabka loo xushay mise kulligood macnaa maxay waxay kasoo wada baxeen akademiyaha qaybta warfaafinta horta taasi waataan hadda aan sheegay oo aan weli marka labaad noogu filaan lahay su-aashaas maxaa yeelay wakti fiican baan siin karnaa sidee loo xulan jiray marka hore wariyaasha laftigooda raadiyo muqdisho raadiyo muqdisho iyo raadiyo hargeysa labada idaacadood oo shaqeynaya ayay ahaayeen labada idaacadood wariyaal badan baa kasoo baxay kasoo aflaxay oo maaragtay magac weyn adduunyada ku yeeshay sida ay magacaasi uu ku yimid iyo maanta farwa u dhexeeya maxaa keenay in dadkaasi ay magac yeeshaan magac aada u ballaaran maantana dadka ay magac u yeelan waaye sida dadkii hore oo kale yani waa sheegaya waxaasoo dhan waa sheegaya waa kaga hadlaya maxaa yeelay waagii hore dad kooban bay ahaayeen wariyaasha oo markaasi qof kastaba doonaya inuu barto amaba uu moogtahay ku xirmo laakiin maanta alxamdulilah cilmiga waa kordhay teknolojiyada way korortay dadka ka shaqeynaya way bateen aad bay u kordheen marka waxaa laga yaabaa maanta dadka qaarkiis ama dhalinyarada qaarkood inay ka fiican yihiin kuwii oo waagii hore jiray qaarkood inay ka fiican yihiin aada uga fiican yihiin markii loo eego si ay ama codkooda u yahay ama si ay ku sameeyaan markaas ma baratid guud ahaan laakiin tirabadnidooda iyo fursadaha ay haystaan tirabadnidooda iyo waxay soo saaraan ismadaxa waa kala badan yihiin haweeye fursado badan bay haystaan oo ah internetkay haystaan wax walba ay keeli karaan bay haystaan oo haddii maanta rabo inuu maaragtay barnaamij ama qodob cilmiga inuu ka hadlo si sahlan buu heli karaa magasa heli karaa meesha innaga aan ka aadi jirnay toban librarigaas librariga kala taag librarigaas kala kasii taag hebel u tag oo buugaas lagu sheegay hebel u tag kasoo qaad waxaas yani dhibka loo marayay in hadda isagoo hal meel fadhiya computerkaas waa ka kicin wax ka heli karaa laakiin fursadaas ma ka faa'idaystaan maya kama faa'idaystaan waxma akriyaan walaagii soomaalida maanta jira maya waxba ma akriyaan waxba ma kororsadaan waxba ma faa'idaystaan hadday sidaa tahay maxay dadku faa'idayn karaan qofkaa cilmi badan kaa aqoon badan kaa akhris badan maxaad u faa'idayn kartaa waa kaa akhris badan yahay dadkii waa kaa aqoon badan yahay waa kaa waxbu kaa yahay adiga inuu akrinaya ma tiid dadka saa u sheegaysaa mada aad iyo aad may marba insha allah gudagal doona insha allah su-aasha udus aan ku weydiinaya waxaa weeye yani waxaa la isku raacay dad badan aan weydiiyo xataa qaarkoodna afkooda ka maqlay wariyaashii hore ka mid ah markay hadlayaan waxay ahaayeen dad macnaa maxay ahayd la dhegeysto hadday aamusan yihin waxay ahayd dad ixtiraam badan bay ahaayeen dhinacaasna iyagana macnaa maxay ahayd dad gaar loo xushmay ahaayeenna waa sidaas waa ku maqlaa si macna ku maqlaa waa run aamuska waxa aada u qiimo badan laakiin aamuska waxaan leeyahay maaha inaan qofkaan waxla asriyin waxla sameynin maaha haweye dadkeena waxaan ku dadaali jirnaa oo aada u weynaa oo aanan la qiyaasi karin haweye inaan akrino inaan wax raadino wax akriska unaa wax weyn buu ahaa weliyaha maanta ninka weliyaha maanta sheeganayaana waxyaabaha aniga aan dadka dhalinyarada aan baro ama aan ku booriyo waxaa kamid a inay wax akriyaan maxaa yeele weli aanan garanayn juqraafi garanayn taariikh labadaas labada ugu muhiimsan waayo oo ninka weliyaha looga baahan yahay inuu taariikhdana yaqaan juqraafina yaqaan
وانا اننا ابونين مدة ان بوسنيا ان حقيقة سوجيدا هذا بدأ بشاكل شوكان مصمين اني وما الودا وانا كبدا يعني واحد اللي بريتو محالة شاذالي كرا ان كروشيا iyo maxay Francisca صح marka Croatia waxa leeyahay waa markii uu horeeyay waxa Croatia markii uu horeeyay ma iga la taay waxa aniga loo qaatay in aniga aan hal kala gareyn ama Croatia hal u jeeray qaadado waa la fahmay dadkii dhan oo bas la aamusay waa socdaa Croatia waxaan way qaaday dhowr jeer bay qaaday laba jeer bay adduunka ka qaaday sababta weydii soo ku wada ay sheegayaan haye maantay waxay ku wada Croatia iyo Serbia iyo Bosnia Herzegovina iyo Kosovo waxay ahaayeen xiriir weynihii Yugoslavia Yugoslavia oo burburtay waay gala FIFA raadiyo FIFA kada انت ادوك انت دريد او كوبك قاعد تسوي فيها يوغوسلافيا اركز على بدل بس هذا فوق لكن يوغوسلافيا اي كلا بربرتي كلا غوغودي بس كي يوغوسلافيا اخوان مكون كلا يدي كبدا بوسنيا وسربيا وكرواتيا وكرواتيا شتا غولو كلا غوغودي ولسوكي هاي يوغوسلافيا marka aad loo qoso waxa hadda akhrin taariikhda wasanina ka yani laga yaabo inaad ka soo dhaxdo dadka saas oo kale meesha ku jira dawladda magaca hadda la baxay ee Croatia dawlad ahaanta magaca cusub oo maanta magaca isku maysan tahay laakiin ma qadiimka ah markii isku tago Yugoslavia hay sax way marka ala aad جلد كتير وحلو يدك وياه وحتى استعماشه ان زيادات ولا ماشي لبعض يشك جغرافي كده يشك كابيتال كده يشك مغاليه كله ينور زيبابو مغاليه بتاع زيبابو مش اللي بقطه مغاليه مكوعه هو ده بتاعتي يا مهون اي have to know all these things that قالوا سوري كنت aad markaas ma raadinaysaa haddii waxyaaba taasoo oo asaasiga dawladda adduunka ee jamciyadda quruuxa ka dhaxaysa kulli waa inaad taqaanaa waa aad war dagaalkii kii kale kulli waa inaad taqaanaa waa wixii kasoo reebta waxaan ka wada calaaya xaal taariikhda dadka waa inaad taqaanaa aad waa inuu knowledge-kaaga dhisan yahay waa haddaan knowledge-kaaga dhisnayn sax waxaana dadkana bari kartid ha ku luqoyin dadka صح وانا عارف كده اديك البرنامج في اول يوم ادي عبد القادر محمد مرسل ادي ابو باص طهي بل انت صاحبك كانوا قيمتك ان شاء الله حتى مش سبتيت ان شاء الله ديال الدمر ان شاء الله تعالى بريلا كيف ممكن عيار يسوي انت عيارتي عدت معي اسبوع ضمن سبتيت دمر الله ادي الله ان شاء الله اسبوع كاسبوع ان شاء الله اوكي هذا هو السلام عليكم باسل kaasi wuxuu ahaa wariye suxufi aqoon-yahan qoraa sare sawir qaade cabdulqaadir maxamed mursal oo raadiyay muqdisho marra madax ka ahaa ayuu ahaa oo khad taraafig ugu wareemay isagoo jooga waddanka maraykanka aad baan uda salaameynaa barnaamijkan insha allah kiisa kale wuxuu noqon doonaa insha allah waxaan ka hadlaynaa tviyada soo kordha iyo waxyaalahay soo kordhiyeen iyo raadiyaashii malqa maarmaa waxaa kaloo ka hadlaynaa insha allah wariyaashii tiraha badnaa ee soo maray raadi muqdisho soo maray iyo raadi hargeysa soo maray bal sidii lagu xulin jiray insha allah taariikhda wax ka barta dalkiina iyo wariyaashiina barta aad baa idin salaamaya anigoo ah aqoon-yahan wariye suxuufi sare aftaax maxamed aadan midnimo agaasimaha idaacadda voice of oslo oo idin leh habeenkan caawa ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu